السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمها بدن كحنا كنالك يوتيوب كيدن شري channel isku naqad wanaagsan iyo article xiiso leh channelkinan waxaynu ogsoonahay ama uu taagan yahay mar walba waxa bulshada faa'iido u leh caafimaadkooda sare u qaadaya ayaan halkan ku soo gudbinaa marka haduu video soo gaaro waxaan ka codsanaynaa walaal inaad si share galayso oo aad gaarsiiso walaalaha kale si iyaguna uga faa'iidaan oo aad nagu caawiso subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta intaas midna lacag kuma joogaan marka walaalaha kale gaarsii adiguna marka waxaad uga faa'iideysay walaalaha kale sidana anaguba kugu faa'iideen mawduucinan maanta hadaan guda galno ayn ka sameeyno videogan waxa weeye geedka loo yaqaan sisinta ama qaabka looga sameeyo macmacaanka ay Soomaalidu ka sameeyso qaab ka duwan ayaan la wadaagayo caafimaadka u wanaagsan geedkan wuxuu leeyahay horta fawaaid aad iyo aad fara badan oo halkan lagu soo koobi karin waxaan u sameynaynaa isaga video gaar ayaan u sameynaynaa oo ka hadli doono fawaaidisa iyo waxyaalaha loo isticmaalo iyo cudurrada uu ka daawan yahay mawduucaas mar gaar ah ka hadli doono insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa oo kaliya sida looga sameeyo macmacaanka ama Soomaalidu say macmacaanka uga sameeyso geedkan oo aad ku aragteen goobaha ganacsiga isagoo yaala oo lagu isticmaalayo marka qaab ka duwan oo caafimaadka u wanaagsan ayay insha Allah halkan kula wadaagi doonaa Soomaalidu geedkan markay macmacaanka sameeyaan waxay u sameeyaan qaab aan caafimaadka wanaagsaneyn qaabkan waxa weeye geedkii ay dabka saaraan ama digsi bay ku sameeyaan markay dabka saaraan ayay waxay ku daraan sokor asaga iyo sokortii ayay sila laf kala ay isku walaaqaan kadibna dabka cabaar markuu saarnaado ay ka soo qaadaan asaga iyo sokortii markay isku dhalaalaan way isku noqdaan xanjo ayay waxay ka dhigaan qaab kuuskuusan aad aragteen ama sida kubadda kale u samaysan nooca ay ku iibiyaan oo suuq loo iibgeeya ama qofka haduu doonayo isagu inuu macmacaan ka sameeyo gurigiisa uu isticmaalaa marka anu waxay nii sheegi doonaa ama halkan kula wadaagi doonaa sidaas ka duwan oo caafimaadka u wanaagsan hadal badan hamama buuxiyay hadaan la wadaago qaabka aan weynii sheegay caafimaadka wanaagsan waxa weeye digsigaada ayaad soo qaadanaysaa ama malqigaaga dabka ayaad saaraysaa geedkii oo aad diyaarsatay ayaad ku shubeysaa dabka waxaad soo qaadanaysaa malab halkii sonkorta aad ka soo qaadanaysay waad ku daraysaa malabkii iyo geedka ayaa isla falgelinaysaa waad ku walaaqaysaa noocii aan marka hore sheegaynay ama buurbuurna ama kuuskuusna ayaad ka sameynaysaa marka ayaad isticmaalaysaa ama aad iib geynaysaa waa nooc caafimaadka u wanaagsan heer sare geedkiina waa geed manfac leh oo caafimaadka wanaagsan malabkana sidan ay ogsoonahay ka warami mayno aad iyo aad caafimaadka u wanaagsan yahay marka qofkii macaan ka cabanaya waa isticmaali karaa qofkii aan macaan qabin caafimaadkiisa u ilaalinaya marka qaabka ayaad u sameysanaysaan marka bulshada Soomaaliyeedna inay ku baraarugto oo aragto ayaan jeclaystay inta ayaan ku soo gabagabeynaa videogan inta ku kulmi doono video kale waxayna ka tagay fi amaanillah